السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa telefishinka caalamiga Universal TV studio-heena magaalada London. waxaanu soo gaaray saacadahan oo kale xilliga nooga barateen inaan hawadiini soo marsiino war wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa dabadiisa oo aqri anigu Maxamed Saciid Saxaaf. qodobada warkaan ku gahaynana waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka hadlay xariga Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax wuxuuna sheegay in xarigiisa ay go'aan ka gaari doonto dowladda wadanka Ethiopia. magaalada Galkacyo ayaa lagu qabtay shir lagaga hadlayay sugidda amniga iyo nabadgelyada gobolka Mudug. shirka ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenada maamulada Galmudug iyo Puntland. wafdi hogaaminayeen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo musharaxa xisbiga Kulmiye ayaa gaaray magaalada Gabiley. mas'uuliyiinta ayaa ka hadlay doorashooyinka Somaliland ee lagu wado inay dhacaan dhamaadka sanadkan 2017. magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay barnaamijka shaqo abuurka dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir. mas'uuliyiinta sare ee maamulka gobolka ayaa sheegay inay ka go'an tahay barnaamijyada wacyigelinta iyo horumarinta dhalinyarada. wararka caalamkan waxaynu kuga haynaa madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in cunaqabateyn dheeri ah oo la saaro dalka Kuuriyada Waqooyi inay tahay mid macna darro ah. qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu kuga haynaa warkeena hadii beedmo. waayahay daawadayaal aan ku bilaabo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ka hadlay xariga Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax wuxuuna sheegay in xarigiisa ay go'aan ka gaari doonaan mas'uuliyiinta sare ee dowladda wadanka Ethiopia. hadaladiisana waxaa ka mid ahaa doonayna ka hadla dhowr qodob oo ku saabsan ninka ama xaaladda Cabdikariim laga hadlayo. horta marka koobaad waxay isweydiin lahaa Cabdikariim waayo oo kuma Cabdikariim waa nin dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia u dhashay booliska ugu horeeyay deegaanka kamid ahaa kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay duurka la galay oo ururka nabadiidka uu ka mid noqday dadkana dhibaateeyay gaar ahaan gobolka Doolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Helow Danood deegaanka Qoraxay Jarar iyo guud ahaan deegaanka dhanba dhibaatooyin badan nogab dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meelna dhibaato ka geystay ma jirto arintiisi iyo waxa weeyaan maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Ethiopia iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dowladda mas'uuliyiinta sare ee dalka Ethiopia cid ay khusayso dastuurka Ethiopia nin hoos jooga weeyaan dowlad dastuur leh oo waxa weey mataqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku raacay maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaanka intaba mid dawlad waxa weey mataqaanaa ilaalinayso oo waxa weey maxaan ku raahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdikariim mataqaanaa dastuurkaas hoos yaala iyadana u taalaa talaabooyinkii mataqaanaa markaas waxa weeyaan dawladda ay ka qaadanayso. dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arrinta Cabdikariim Qalbi Dhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meelo kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiig miiratadii Al-Shabaab iyo Ubo. dadka hadda siyaabo kala gedsan bay uga hadlayaan dad fikirro khaldan bay ku hadlayaan oo tusalahan Cabdikariim bay ka hadlayaan marka waxay isweydiinayaan Cabdikariim cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku raacay weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ama Soomaaliya ha fadhiyaan dadka ka hadlayay horta waxa weeyaan Cabdikariim bay u daneynayaan baa taala saaif oo Cabdikariim way ka xun yihiin in wax la yeelo maya hirin agenda fara badan baa jira hirino agenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan mataqaanaa kursi bay ku doonayaan oo dawladda Soomaaliya mataqaanaa iyo waxa weeyaan nidaam wala is garanaya wax iska cad weeyaan politika ka raxay halkaas inuu wada xoga soo dhaxbaxo ka raadinayaan oo iska cadahay marka waxa weey mataqaanaa oohin bilaash mataqaanaa waxba ka jirin mataqaanaa oohinaya midna waa mid dawladda Soomaaliya iyo Amisom iyo Ethiopia iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee Al-Shabaab ku tirtireen waxa weey Al-Shabaab ku weeqantay ee hadda mas'uuliyiinteedii ugu sareysay isku soo dhiibayso waxa weeyaan talaabada laga qaaday qorshe si Al-Shabaab loo soo celiyo Al-Shabaab baa loo ooyay Cabdikariim haykaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar oo ka hadlaya xariga Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax hadii beedmana guud ahaan arintan iyo waliba siyaasadda ku hareeraysan aad ku daawo doontiin barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe.
magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay shir lagaga hadlaya sugidda amniga iyo nabadgelyada gobolka mudug shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenada maamulada galmudug iyo puntland warbixin inta ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo inooga soo diray waryaheena liibaan cajiib xaaji waxaanay maanta ka furmay magaalada gaalkacyo loogana hadlayay nabadeynta gaalkacyo sidii looga hortagi lahaa colaadaha inta badan ku soo laabtay miyiga gobolka mudug una dhaxeeya xoolo dhaqato kala soo jeeda labada maamul ayaa waxaa gaalkacyo ku yeeshay odayaal kala matalaya labada dhinac wasiiro xildhibaano iyo qaybaha bulshada ee ku nool magaalada gaalkacyo shirkani looga hadlayay xaslinta nabadda gobolka mudug ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenada galmudug iyo puntland cabdixakiin xaaji cami iyo maxamed xaashi cabdi iyadoona inta badan odayaasha dhaqanka ay si adag uga hadleen sida looga hortagi karo colaadaha weli ka taagan deegaano ka tirsan miyiga gobolka mudug waxayna ugu baaqeen labada maamul inay la yimaadaan qorshe cad oo arrimahaasi wax looga qabanayo kulanku ahaa mid odayaasha dhaqanka ay si aad diiradda ugu saareen sida looga gaabiyo xalka gaaridda colaadaha ku soo laabtay gobolka mudug ayaa ugu dambeyntii waxaa laga soo saaray 3 qodob oo sida la sheegay hordhac u noqon doona kulamo kale oo maalmaha soo socda gaalkacyo ay ku yeelan doonaan labada maamul qaar ka mid ah odayaasha labada dhinac oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan xalka gaaridda colaadaha gobolka mudug anigoo ku hadlaya dhammaan ismada Puntland codkooda أنا كوها الله دمان شعب puntland codkiisa dhammaan gobolka mudug الله waxaan leeyahay oo aan ku baaqaya ehelow aan ka shaqeyno nabadda aynu istaagno nabadda aynu istaagno baan leenahay qodobka labaad waxaan leenahay insha Allah hadaa leeyahay waan ka daalay waa ku daalay dhiiga daadanaya ma waanan marna aqli inoo kordhayn ma waanan marna maskax inoo kordhayn ma waana ka fakareen wiilka dhimanaya reer galmudug nabad bay ilaahay horta diyaar u yihiin ana magacooda ku hadlaya magaca guud oo gobolka mudugna haddaan ku hadlo waxaan ku baaqaya walaalayaal dhul ballaaran oo ugu filan oo nabad ugu filan bahaysan aan ka wada shaqaysano oo isku ogolaano oo ilaahay ka cabsano oo nabad iyo horumar aan dalkanaga iyo dadkanaga ku horseedno walaalahanaga kale waxaan u ballan qaadeen nabad dhinaca ayaga ay ugu noolaadaan ina anagu dhacna ka sameeyay ayagana waxaan ka codsanaa inay ayaguna soo kala sameeyaan hore bay u ahaan jirtay wax ajaa'ib oo aan la heli karin maaha wax la heli jiray oo dadkan u yaqaan oo in badan oo ragga halkan fadhiya ay ku dhasheen weeye madaxweyne ku-xigeenada galmudug ee puntland cabdixakiin xaaji cami iyo maxamed xaashi cabdi ayaa ugu dambeyntii la hadlay warbaahinta iyagoona ka waramay waxyaabihii lagu heshiiyey ku sheegaya 3 qodob oo la rabo in laga wada hadlo qodobka ugu horeeya dib u eegista heshiiskii bishii 7aad 24keedii wixii ka qabsoomay falanqayn wixii aan ka qabsoomin in laga wada hadlo joojinta iyo wax ka qabashada xaaladda colaadeed ee hadda taagan wax ka qabashada iyo xal u helidda wixii dhacay waqtigii heshiiska ka dambeeyay xalinta xal waara oo ka hirgala gobolka mudug waxaad moodaa qodobadan markaad sii yareegtaan runtii waxna labada maamul baa ka wada hadli kara oo ka wada hadlaya inta kalena waxaan filayaa inay odayaasha u taalo annaguna dhinac taagnaan doono saawgeed waxaan u baahannahay in dadkan aan walaaleyno hal ka dhigno nabadan aan qaadano waxa jiro oo dhabta ah waxaan ugu faraxsanahay hadaladii saaka lagu hadlay qaar badan oo kamid ah waxaan jeclahay waliba in inta looga sii dhawaado oo si dhab loo wada hadlo horta waxa la isku haysto saxda in la qeexo maxaa dadka ka dhaxeeya in la arko maxaa dhibka keenay in la dhaho macnaha haddii geel kaliya yahayna geeli in laga wada hadlo haddii dhul yahayna dhulka in laga wada hadlo haddii uu wax kale yahayna in laga wada hadlo liban cajiib xaaji TV Universal gaalkacyo wafdi hogaaminayeen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo musharaxa xisbiga kulmiye ayaa gaaray magaalada Gabiley mas'uuliyiinta ayaa ka hadlay doorashooyinka Somaliland ee lagu wado inay dhacaan dhamaadka sanadkan 2017 warbixin inta ku saabsan waxa magaalada Gabiley inooga soo diray wariyaheena Aydruus Axmed Ismaaciil madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil iyo Muuse Biixi Cabdi
oo labadooduba ah murashaxiinta xisbiga kulmiye uga tartamaya doorashada madaxtooyada ee foodo inagu soo haya ayaa soo gaadhay magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley kadib markii ay labadii maalmood ee ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal murashaxiinta iyo xubnaha wafdiga ee ay horkacayaan oo intii aanay soo gaadhin magaalada Gabiley ay kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye ay kaga hortageen magaalada Kalabaydh oo wata kanayooyin gaadiid ah oo ku jeenay qaarna calaamaadka xisbiga kulmiye astaanta u ah iyo dhalinyaro ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka kuwaasi oo isu hareero tubay laamayda hareeraheeda ilaa inta ay u dhaxayso magaalooyinka Kalabaydh iyo Gabiley iyada oo gudoomiyaha laga dajiyay gaadhigiisa intii aanu soo gaadhin gudaha magaalada Gabiley isagoo cabaar gucle orod la qaatay taageerayaashiisa kula soo dhex mareen wadada halbowlaha u ah magaalada kuwaasi oo gabagabadii socdaalkooda ku soo afmeeray fagaaraha khayriyada ee magaalada halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen maamulka heer gobol iyo heer degmo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee Gabiley salaadiin cuqaal iyo waxgarad waxaynu joognaa maalin aad iyo aad u qiimo badan waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadweynaha reer Gabiley ee qiimaha iyo sharafta leh ee sida weyn u soo dhaweeyay waqtiga uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland ay ka midka yihiin gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa xisbiga waqtiga waxaanu leenahay soo dhawaada dhammaantiin haddaanu reer Gabileynahay anigoo ku hadlaya dhammaan bulshada reer Gabiley dawladooda kala duwan waxaan idiin ballan qaadaynaa musharaxiinta xisbiga kulmiye ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee maanta horteena fadhiya inagoo ilaahay la kaashanayna inaynu codkeena siin doono 13 Noofembar waxa iyaguna halkaasi kala hadlay dadweynaha madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi جزاكم الله خير إن المرأة يعني يوغني ولا أنت بيجي تدخل ما وليني مرأة مدمين ونولا بر مدم بانسام الرئي مرأة عن الله لينه ما يراهير يوسف بحق بانسين ما يراهير عذاب حضورينا نمرو ونولا هطي نمرو دقيقان إذا قبل كستوها شاء وحي لهي ما أنت عود كان قبلي بالمسينينا أنا فرحت علي طريقها وسيسيسها مرة بعد أنا مسيوها علي إذا مرة بشرح مغلو إذا ما تنسيني وكذا يلو ولو قاعدين معلمين ورشيء الله كانت كلمة خارية اسكتها كيف قيمها لها يبقى المهدي يجري كلمة كهين كيما ما تنم مغرى عيدوز أحمد إسماعيل غذية تلفزيون عالمي الفيصل Gabiley magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay barnaamijka shaqo abuurka dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir mas'uuliyiinta sare ee maamulka gobolka ayaa sheegay in ay ka go'an tahay barnaamijka wacyigelinta iyo horumarinta dhalinyarada warbixinta ku saabsan waxa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdi Naasir Ayaanle oo ahaa mid lagu soo bandhigay shaqo abuurka dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa ahaa mid uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir isla markaana waxa barbar socday su'aalo la weydiinayay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa dhalinyaradii kulankaasi goobjoogaheed ayaa ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir waxaana kulankaasi ku wehelinayay gudoomiyaasha degmooyinka qaarkood su'aalihii la weydiiyay maamulka gobolka waxaa ka mid ahaa habka loo xulayo dhalinyarada la shaqaaleysiinayo degmooyinka marka loo qaybiyo ayaa fursadan waxa looga faa'iideysan doonaa sida soo socota oo su'aasha labaad oo isla taal la socoto oo ah waxa loo kala qaybsan doonaa gabdhaha iyo wiilasha si siman ay u kala qaadan doonaan degmadu yani sida guud waxa loo qaybin doonaa fursadda gabdhaha iyo wiilasha ka faa'iideysan doono isla markaa waxa ka faa'iideysan doono dadka baahiyaha gaarka qabo way ka faa'iideysanayaan fursaddan percentage ayaa jira ee ku aadan 58 qof dadka baahiyaha gaarka qaba oo dadka Soomaalida magaca sidaas u yaqaan baahiyaha gaarka qaba kala duwan ayaa qayb ku leh sidoo kale gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa madashaasi ku soo bandhigay shaqooyinka ay qabanayaan dhalinyarada iyo mushaarka ay qaadanayaan waxa qofka daahfurnaan ugu filan hadii degmada loo daadajiyay in fursadan ay ka faa'iideystaan dhalinyarada
dhalinyaradaasna oo ay noqon doonaan inta ugu badan oo dhalinyarada oo fursadan oo loogu talagalay maadaama la yiri aan ugu yaraan dugsi sare waa inay haystaan dugsi sare ka bashaada dugsi sare haystaan ayaa fursada ugu badan inta badan waxaa fursada qaadanaya dhalinyarada oo muqdishaawiga ah runtii mushaarkiisa waa $150 marka 6daas bilood qof kasta oo mashruucaas ka mid ah qayb kasta oo kusoo aad uu ka shaqeynaa maadaama ay kala duwan yihiin ama farsamada ha noqoto ama qaybaha kale ha noqoto arrimaha bulshada ah waxay u qaadan doonaan qof kasta $150 waa bishi marka anaga waxaan ku dadaalaynay inaan dhalinyarada shaqo abuur u helno oo ay shaqo helaan ugu yaraan oo dhalinyarada shaqo loo helo markii uu soo idlaaday kulankaasi waxaynu la hadalnay qaar ka mid ah dhalinyaradii halkaasi ku sugnayd waa markii ugu horeysay aan isdhihi karaa dabcan dawladda barnaamijkaas ay ka dhawaajisay intaanan wadanka ku sugnayn maanan arag fursado badan dabcan way jiraan laakiin fursadan dawladda ay soo bandhigtay waxaan leeyahay dhalinyaradu dhiirgelin oo ay u noqonaysaa qof walba markaasi wuxuu ku dhiiranayaa in shaqo dawladda uu markaas raadsado maxaa kana anigoo ah dhalinyarada ku dhalatay gobolka Banaadir wax ku baratay waqti badan ku noolaa in maanta shaqo abuur noola suubiyo runtii barnaamijkan waa barnaamij aan ka suugaynay dawladda cusub iyo maamulka gobolka Banaadir in ayagu ay dhiirigeliyaan dhalinyarada wax baratay waxaa la ogyahay dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir inaysan haysanin shaqo laakiin maamulka gobolka Banaadir uu raadiyay xal dadkaas shaqo loogu suubinayo 12 Agost sanadkan ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu sheegay in la shaqaaleysiinayo 1,000 dhalinyaro oo kamid ah kuwa ku dhaqan gobolka Banaadir si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan reerkooda Maxamed Cabdi Naasir Ayaanle telefishinka Universal magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay kulan ay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ay la yeesheen aqoon-yahanada iyo dhalinyarada ku nool magaaladaas ka qaybgalayaasha kulanka ayaa ka hadlay taageerada guud iyo siyaasadda xisbiga wadani warbixin inta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheenna Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen inta xisbiga mucaaradka wadani ee ka soo jeeda degmada Axmed Dhagax ee xaafadda magaalada Hargeysa ayaa waxay habeennimadii xalay ahaa kulan ballaadhan oo isxog waraysiya ay kula yeesheen magaalada tan Hargeysa dhalinyarada aqoon-yahanka ka soo jeeda xaafadaasi ujeedada kulankani ayaa waxa ay daarnay sidii loo xoojin lahaa taageerada xisbiga mucaaradka wadani ay u hayaan dadweynaha ku dhaqan xaafadaasi ugu horreynna waxa kulankani hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta iyo waliba siyaasiyiinta kala duwan ee xilalka ka haya xisbiga mucaaradka wadani ee ka soo jeeda xaafadda Axmed Dhagax marka hore waxay farxad ah maanta inaan ama caawa aan la kulmo aqoon-yahankii reerka oo waliba ah aqoon-yahankii reerka oo waliba saboodsan xisbiga wadani aad iyo aad bay aniga sharaf igu tahay run ahaantii ka dhalinyaro aqoon-yahan ahaan wuxuun baan anigu idiin soo jeedin lahaa inay ka qayb gashaan xisbiga kolba halka uu marayo madaxda hadday tahay qaybihiisa kala duwan hadday tahay inaydan meel un fadhiin oo dhex gashaan oo ka qayb gashaan qof diidi kara ma jiro inay xaafadda degmada Axmed Dhagax ay tahay xaafadda ugu horeysa xisbiga wadani tirada ceelashay bilaashkay dawladdeena la siiyay 7 sano kulmiyay jiray 200 way ka badan yihiin jiideenu bari ilaa galbeed ceel laga cabo ayaa loo diiday social service kii loo qabanayay ummadda ka dhaxeeyay ama biyaha ha ahaato ama caafimaad ha noqoto ama xoolaha oo la hagaajiyo ha noqoto wax walba uu ka qatanay dhinac walba de horta caawa xisbi ahaan baynu isugu nimid dhalinyaro iyo waayeelba waxaynu isu sheegaynaana waxa weeye khasaaraha inoogu sugnaa xisbigii kulmiye ee aynu ku soo tacabnay ee dabadna inaynu ka tashanaa dee caqliga saliimkii uu keenayo iyo faa'iidada aynu ka rajaynayna xisbiga wadani waa laga soo warramay dhalinyaraha xukuumaddu lahayd sida aanay guud ahaanna qaranka si habsamiya ugu adeegin gurac iyo qallooc mooyaane ilaa burburinta hay-adaheedii qaran iyo sida ay degaankeenna gaar ahaanba u dayacday biyo la-aanta imaka halkaa aynu taaganay ka taagani dee ilaa iyo caalay ka taagan tahay mar walba way ku sawiranta inaynu mar madaxweyne noqono
madaxweynaha markaynu noqonaynana nin kastana inay laabtaa ugu jirtaa wanaagsan waayo hamiga wanaagsan mustaqbalka wanaagsan markuu ninku high levelkiisu yahay wuu helayaa gabagabadii kulankaasi ayaa waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha kumeel gaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde hore waxa weeye deelka guntiisaanu ku jiraa bal xaaladda dalka halkay marayso inaan idinka warramo waxa la socotaan institutionadii dawladdu baarlamaanka wuu inaga dhintay guurtidii way inaga dhimatay maxkamadiina way inaga dhintay intaasoo dhanna waxaa curyaamiyey xukuumadda ama fulinta kii dekadda la wareejinayay qaabka loo wareejiyay waa la socoteen dekadda dan Soomaaliland leedahay looma wareejin horta halkaasaynu ka maraynaa wax dee dalkan waxbaynu ku leenahay daawadayaal kama noqon karo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal TV magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay xaflad lagu taageerayay musharax daahir cabdulla cawaale oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimo ee maamulka Hirshabelle musharax ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono arrimaha amniga ee deegaanada hoosmaada maamulkaas warbixinta ku saabsan waxa muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Ibrahim Okey Dr. Daahir Cabdulla Cawaale ayaa isku soo sharaxay in uu noqdo madaxweynaha maamulka Hirshabelle munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho siyaasiyiin odayaal haween dhalinyaro iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadaasi siyaasiyiinta odayaasha iyo haweenka ayaa musharaxa madaxweyne Hirshabelle Dr. Daahir Cabdulla Cawaale soo dhaweeyay waxaana ay kula dardaarmeen in uu haddii uu ku guuleysto xilkaasi si hufnaan iyo cadaalad leh oo bulshada ugu shaqeeyo waxaana ay ku baaqeen in codka kalsoonida la siiyo musharax Dr. Daahir Cabdulla Cawaale madaxweynaha Hirshabelle ee maantana u sharaxan Daahir Cabdulla Cawaale insha Allah waadaan ugu rajaynaynaa in uu madaxweynaha Hirshabelle samata bixi doono inuu noqdo kuna guuleysto Hirshabelle waxaan leeyahay war ilaahay ka cabsada daacadnimada loola shaqeeyo anigu waxaan ku jiray aniguba aan ka mid ah waxaan ballan qaadayaa inaan si daacad uga shaqeeyno daacadda loola shaqeeyo asna daacaddaas la yimaado kale waxa sugaya oo meesha ku filan cadaalad marka ugu horeysa labo dadka xaquuqdooda inuu raadiyo saddex inuu ogolaado inuu jiifo jawhar iyo bulabardii balweyn inuu seexdo oo saxamad soo aadin daahir inaan dooranahan doorkiyo raba daahir inaan dooranahan doorkiyo raba inaan dardar galinabahan maanta doonaya inaan duub saaranahan maanta doonaya asna inuu noodaneeya la doonaya musharax madaxweyne ee maamulka Hirshabelle Dr. Daahir Cabdulla Cawaale ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guuleysto inuu noqdo madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo yeelan doono calool furri ah oo wanaagsan iskugu keeno ummadda reer Hirshabelle wada hadal siiyo dhibka ka dhex jirana sidaan wax uga qaban lahaa aan sameeyo taas ayaan ku fikiray sidaas ayaan u imid maantay insha Allah maanta ay bisha 5 bisha 9 2017 waxaan goostay inaan noqdo musharax madaxweyne ee maamul goboleedka Hirshabelle walaalayaal halku dhiga meeshaan ku qoran ay aragtaan waa han hiigsi iyo horumar hanku waa midnimo iyo isku keenid dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabelle hiigsigu waxa waaye in la helo amni oo qof walba uu ku seexdo oo qof walba wuxuu howl maalmoodkiisa uu ku qabsado Cabdicasiis Ibrahim Maxamed Okey TV Universal magaalada Muqdisho magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa lagu qabtay xaflad caleemasaar ah oo lagu caleemasaarayay nabadoon Axmed Cumar xafladda ayaa waxa goobjoog ka ahaa waxgarad siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada hoos yimaada maamulka Puntland warbixinta ku saabsan waxa magaalada Garowe inooga soo diray wariyaheena Cumar Maxamed Soomane
magaalada Garowe ee xarunta dowladda Puntland waxaa maanta lagu qabtay xaflad ballaaran oo si rasmi ah loogu caleema saarayay nabadoon Axmed Cumar Kaaton oo ka mid noqonaya duubabka dhaqanka Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal waxaana xafladani ka qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka waxkaradka isimada salaadiinta duqeyda dhaqanka xildhibaano wasiiro iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka Nugaal iyadoo xubnaha ka qayb galaya xafladani ay sheegeen inay soo dhaweynayaan nabadoon Axmed Cumar Kaaton nabadoonka cusub waxa leeyahay waxa la yiri rag cadaalad waayay sida cawsha kala yaac nabadoone mas'uuliyad iyo xil baa qaaday xilka iyo mas'uuliyadana wax ula sooyay waxaana ugu horeeya oo dadka isu keena oo saldhig u ah cadaaladda nabadoona cadaalad ogow nabadoonka cusub oo Axmed Cumar aqoon dheerna aanu u leenahay inuu yahay nin oday ah oo diin leh oo asluub leh oo xishood badan aad iyo aad boqolkiiba boqol aad u xishood badan hadeer nabadoon lahaan ciidda ma hayne waxay la tahay kamaarmin waa lagugu arkay baa lagu soo qabtay waxaan rabaa inaad aqoonna waa ku leeyahay oo inaad hadeer aad ka soo bixi kadib waa waxa lagu arkayo hadeerka beeshu ku soo saadhay waxaan leeyahay qabiilada dooratay iyo gobolka iyo wax allaale iyo wixii ummada oo xilka uu qabtay inay isagana ku xurmeeyaan isaguna inuu booskiisa ka soo baxo isagana intaasaan ku boorinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa nabadoonka cusub soo dhawow baan leenahay nabad ku soo dhawow baan leenahay waa ku salaamaynaa waa ku hambalyeeynaa waa kula shaqaynaynaa ilaahay baa mahadle xilka aad qaadana Allah ku fududeeyaan leenahay nabadoonka cusub ee maanta lagu caleema saaray magaalada Garowe Axmed Cumar Kaaton si rasmi ah uga mid noqonaya duubabka dhaqanka ee Puntland ayaa u mahad celiyay dhammaanba xubnaha xafladda ka qayb galay waxaana uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed uu si cadaalad ugu hogaamin doono waxaan kale oo idinka codsanayaa in la igu duceeyo xilka la ii doortay waxaan si buuxda ula shaqaynayaa isimada wadatashiya isimada nabadoonnada iyo dhammaan waxgaradka ayaan ula shaqaynayaa islaan ciise islaan maxamed islaan muuse iyo suldaan saciid maxamed garaase oo ka mid ah isimada dhaqanka Puntland ayaa madasha ka duceeyay kuna baaqay in nabadoonka cusub lala shaqeeyo ilaahay waxa la qabto inagoo dhan dambigan iyo kiwaardkeen baa Allah dhaaf bala dhammaanteedna Allah inaga xijaabo khayr dhammaantiisna Allah inoo fur ilaahu waa ladanay noo siyaadi ilaahu waa nadalnahay noo siyaadi ilaahu aan garan waayno iska qubin cirkana madar khayr qabo ummadda deeqaan afalahayn ilaahu naga sii maanta nabadoon Soomaaliyeed way ma aha nabadoon in hebel hebel iyo reer hebel intiina soo saartay guddoon buu leeyahay shaqada iyo abaarta iyo hawsha la rabo in la qabto garbaheedu waa idinka Soomaalidu waxay tiraahdaa farkeliyi fool ma dhaqdo Cumar Maxamed Soomane Universal TV Garowe doqa magaalada Hargeysa ayaa waraysi gaar ah uu siiyay telefishinka Universal ayuu kaga hadlay dhismaha wadooyin cusub oo laga dhisayo gudaha magaalada Hargeysa wuxuuna sidoo kale sheegay inay wadi doonaan dhismaha wadooyinka halbowlaha oo ah isku xirka magaaladaas warbixinta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray waryaheena Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko oo maanta waraysi khaas ah TV-ga Universal ku siinayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa waraysigaasi maayirku kaga waramay wadooyin casri ah oo ay dawladda hoose magaalada Hargeysa hormood u yahay maayirku ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada Hargeysa wadooyinkaasi oo ah kuwa casriga ah ee caalamka ee loo yaqaan asfasha maayir Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko waxa kale oo waraysigiisani uu kaga hadlay isla markaana uu sheegay inay u qorsheysan yihiin wadooyin kale oo ay sameyn doonaan kana dhigi doonaan kuwa ay hadda ay dhameystireen ay dadka ku nool magaalada Hargeysa ay si weyn uga mahad sheegteen Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko oo isagoo arrimahan ka hadlay waxa kamid ah hadaladiisii runtii wadada labaad iyo 10 wado oo ka baydhaya iyo marka la gaaro khayriyada afar wado iyaguna
toos u kacaya bariya galbeed intaasaanu israacinaynaa oo ah waddadii labaad iyo downtownkii magaalada waxaanu samaynaynaa iyadana total ilaa jaamacadda ama jaamacadda ilaa total oo ah wadda halbowlaah dhalinyartii jaamacadda in loo sameeyo iyo muxuu ahaa degmada axmed dhagax oo dhan xaafaddaa dhex maraysa ilaa 11 meey isku xidhaysa waddada togdheer ka baxda ilaa iyo mansoor hotel oo iyaduna ah waddada ugu saxmadda badan leh oo iyaduna muddadee waa lasoo kabkabayay kabkabka waddadu waxay u kala googoodaa sida uu culaysku ugu badan yihin halkaasi waa waddooyinka qorshahaanu wadna inay muddada dhow ku dhammaadaan baakinka waxaan doonaya inaan kusii bilowno 2 meelood dhakhtarka galbeedkiisa oo aanu dhignay muxuu ahaa aanu marmarkii dhignay oo iminka u diyaarsan oonu doonayna inaan insha allah wiigaga soo socdo ku bilowno iyo baananka hortooda halka khayryada agteeda oonu baakinkii lacagtaa ku bilowno markaanu 2 meelood u salaxno waxay noqon doontaa downtownku inuu noqdo baakin ka qaalisan qofku hadduu istaago saasaan ugu talagalay iyagana kolkaa aan baakinka hadii jeer downtownka la gelin xagga imika laamiyadii aad baad u dayactirkii u samayseen oo si wanaagsan bay u socotaa marka la eego dawladda hoose imika waxqabadkeedu si wanaagsan u muuqda bal maxaa dadku waxay isweydiinayaan maxaa keenay waddooyinkan casriga in hadda xilligan la sameeyo lagu soo beego run ahaantii dee sanadkan waxaa noo qorshaysnaa waddada airportka iyo waddada labaad wakhtigii hore waa tii warshadaanu ku kibaynay iminka warshadda sidii ugu fiicnayd iyadoo noo yimaadeen qoladii suweeko ee aanu warshadda ka iibsanay kuuriyaanka ahaa oo sidii ugu wanaagsaneeda loo isticmaalayay ay noo sameeyeen injineeradeennina tababareen shaqaalaha ka howlgalaa iminka 3 qof mooye inta kale waa dad reer Somaliland u dhashay 3 qof unbaa ku hadhay shaqaalihi ajaanibka ahaa shaqaalaheenoo la tababaray markay tababarkii qaateen iminka haddii dhaqaalaha dadku kana qayb galaan waddooyinka cashuurtana si fiican loo bixiyo waxaanu samayn karaynaa maalintii 1 kilomitir taas waa wax weyn oo la qaban karayo waxay ku xidhan tahay dadku say uga qayb galaan cashuurtana loo bixiyo haddii dhaqaale loo helo maalin walba wax la samayn karayaa kilomitir markaa 30kii cisho waa 30 kilomitir weeye markaa waxay ku xidhan tahay dadweynuhu say noogala qayb qaataan iyo say cashuurta u bixiyaan bulshaweynta waxaan leeyahay had iyo jeer waxaa la dhaliilaa maamulka oo la yiraahdaa waxbay qaban waayeen waa waxbaanu qabanaynaa waanu leenahay lacag la'aan iyo dhaqaale la'aan baan u fadhinaa cashuurtana bixiya contributionna ka qayb qaata iminka waddadaan dhisaynaa waa waddadii meynka ahayd dadka waxaan u dirnay waraaqahaas in qaadhanka lagu soo ururiyo shayga qura ee maanta loo fadhiyaa waa dhaqaale dadweynuhu aday ku xidhantahay gacantaada wixii la qabanayay annagu har iyo habeen baanu diyaar dilanahay inaan wax idiin qabanno cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal TV deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay shir lagu soo gabagabeynaya dagaal dhex maray beelo wadadaga gobolkaas ka qaybgalayaasha shirka ayaa sheegay inay gaareen heshiis ay goobjoog ka ahaayeen dhinacyadii uu dagaalku dhex maray warbixinta ku saabsan waxaa ceelaf weyn inooga soo diray wariyaheena Axmed Mursal Askar ay maanta si rasmi ah u soo afjareen isla markaana u soo gabagabeeyeen 2 beelood oo kamid ah beerihii dagaalada googooska ku dhaxmareen muddooyinkii ugu dambeeyay qaar kamid ah deegaanada degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolkaasi Sanaag labadaas beelood oo dhexdeeda ka soo heshiiyay isla markaana u soo gudbiyay waxay ku soo heshiiyeen golaha guurtida iyo ergooyinka dhexdhexaadka ee labada dhinac ee u joogay degmada Ceelaf Weyn xalka gaarista khilaafka labadaas beelood munaasabada heshiisiinta labadaas beelood oo ka dhacday howlka shirarka ee aqalka nasashada degmada Ceelaf Weyn ugu horreyn waxa ka hor akhriyay munaasabada go'aamada ay ku soo heshiiyeen labadaas beelood xubin kamid ah golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo qodobada heshiiska labada beelood baxayay kadib markii shaqaaqooyin gacan ka hadal ah oo keenay dhimasho iyo dhaawac burbur kantiyeed iyo muddo sanad iyo bar ku dhow ka dhex socdeen labada beelood ee kor ku xusan waxaana ugu dambeyn colaadii lagu soo afjaray heshiis labada beelood ku gaareen magaalada Ceelaf Weyn heshiiskaasi oo u dhigan sida tan nabadgelyada fadhiyo labada beelood oo yeesheen waxay la isla qaatay nabadgelyo shuruud la'aan ah oo dhex marta labada beelood waxaana la dhaariyay madax dhaqameedkii iyo waayeelkii labada beelood laguna hor dhaariyay guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xidhayaasha labada beelood waxa kale oo labada beelood isla qaatay in nabadgelyada si hawl yar loogu jabin samayn dabarkaasuna wuxuu ku lifaaqan yahay go'aamada labada beelood wada qaateen laba deegaanka
waxaa labada beelood isla qaateen in tuulooyinka ceelasha iyo cawska si siman loo wada leeyahay loogana faa'iidaysan doono oo aan la kala lahayn waxaa reeban in deegaano iyo tuulooyin dambe la sameeyo ciddii doonaysa inay meel degto waa inay ku biirto deegaamada iyo tuulooyinkii hore u jiray 3 magaha waxaa lagu heshiiyey sida tan raggii dhintay ninkiiba in laga qaado daraf uu bixiyo 110 halaad una qaybsan sida tan 80 halaad oo dhogor ah iyo 2 lacag ah oo kaashkooda u dhigmo $300 hashiiba iyo 10 halaad oo ari loo bedelayo una dhiganta 100 neef oo ari ah ba dilxumadii labada nin markay cadaatay waxaa lagaga heshiiyey in ninkiiba laga bixiyo 80 halaad oo dheeraad ah una qaybsanta sida 50 halaad oo dhogor ah iyo 20 lacag ah kuna qiimaysan $300 hashiiba iyo 10 halaad oo ari una dhiganta 100 ari ah aaskii waxaa lagu heshiiyey in marxuum kasta laga bixiyo $1,000 waxaana lagu bixinayaa isla maanta oo bishu tahay 5tii bisha 9aad 2017 dhaawacyada waxaa laga heshiiyey xilliga ay soo bogsadaan hawlahana laga baxo la isugu yimaado cid walibana wixii ay yeelato la siiyo muddada magaha waxaa lagu heshiiyey in jifaha oo ah 330 halaad lagu bixiyo muddo dhan hal oo ka bilaamaysa 1ii bisha 9aad 2017 kuna dhamaanaysa 1da bisha 10aad 2017 magaha inta kale waxaa lagu bixin doonaa muddo 6 bilood ah kana bilaabanta 1da bisha 9aad kuna 10ka bisha 4aad sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay boqor Cusmaan Buurmadow iyo Suudaan Saciid Cawl Daruur oo kamid ah madax dhaqameedka labadaas beelood waxayna sheegeen inay dhaqan gelin doonaan ka madax dhaqameed ahaan go'aamadaas ay ku soo heshiiyeen labadooda beelood iyo qaar kamid ah isimada dhexdhexaadka ee labada dhinac oo sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin labadaas beelood ee khilaafku ka dhaxeeyay isla markaana dhexdooda ka soo dhameystay khilaafkii ka dhaxeeyay dambeyntiina waxa goobta lagu kala gudoontay aasaska 17 marxuun oo ku kala dhintay dagaaladii labadaas beelood dhex maray Axmed Mursal Askar TV-ga caalamiga Universal cabdikariim cali nuur oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimo ee maamulka Hirshabeelle ayaa booqday isbitaalka magaalada Jowhar musharaxa ayaa sheegay inuu wax ka qaban doono adeegyada caafimaadka ee deegaanada hoos yimaada maamulkaas warbixin inta ku saabsan waxa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheena Ismaaciil Cabdulle Sabriye musharax madaxweyne cabdikariim cali nuur oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta kormeeray isbitaalka magaalada Jowhar sida isbitaalka hooyada iyo dhalaanka iyo isbitaalka weyn ee Jowhar iyo goobo webiga Shabeelle oo horey uga fatahay qaar ka mid ah beeraleyda ayaa sidoo kale oo ku booqday beerahooda dhanka kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayuu musharaxu maanta kulan qada ah la qaatay ugu horeyn musharaxa ayaa xaaladda isbitaalada waxa uga warbixiyay qaar ka mid ah dhaqaatiirta xilligaasi ku sugneed musharax madaxweyne Hirshabeelle ku soo dhawow xarunta IMC gobolka Shabeellada Dhexe Jowhar adeega aan qabano guud ahaan waa adeeg lacag la'aan wax lacag oo aan ka qaadano ma laha waa free of charge mar walba waxaan ku daalanaa quality service si loogu qaban lahaa qaybtan uu soo booqday ma sha Allah musharaxna soo dhawow marka waxa jira baartaan waxa jiif waxay kula qaybtaa qayb ciyaal waay qaybna dadka weyn waay qaybta ciyaalka waxay soo kala qaybsataa ilaa iyo laba qaybood qayb malnutrition waa severe malnutrition kala jiifiya qayb measles waay qayb pneumonia waay bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweyne waxaan ku soo dhaweynaynaa aan ka codsanaynaa haddii barnaamijkan ku guuleyso madaxweyne cabdikariim inuu maxay wax ka qabto duruufo badan aa jiro oo gobolka Hirshabeelle qasan degmada Jowhar ee ka jiro wax walba waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare leeyihiin webigan aad arkaysaan marna waa musiibo marna waa in maaragtay oo fatahaad oo maaragtay fara badan oo soo gadeeyay meel la yiraahdo baarey la yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa musharax madaxweyne inuu intaas iyo in ka badan qaban doono aad iyo aad aan uga mahad celihaynaa soo booqashada aad soo booqatay bukaanada jiifa isbitaalada musharax madaxweyne cabdikariim cali nuur ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono isbitaalada iyo fatahaadaha webiga Shabeelle uu sameeyo haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Hirshabeelle maanta waxaan booqasho ku tagnay isbitaalada kala duwan ee magaalada Jowhar isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada ay leedahay sida IMCA oo maaragtay lagu daaweeyo cudurrada haweenka maaragtay iyo maaragtay lagu dhaliyo hooyooyinka isbitaalkaas waxaan ku soo aragnay baahiyo badan ee aad ugu baahan yihiin dadka
isbitaalka waxaa gacanta ku hayo hay-ad waxaa maaragtay isbitaalkaas kusoo aragnay maaragtay bukaano badan oo aad u xanuunsan laakiin haddii ilaahay yiraahdo annagana maaragtay markii aan guulaysano wax badan ayaan ka bedeli doonaa haddii ilaahay yiraahdo qaabka dhaliinka isbitaalada aan booqanay maanta waxaa ka mid ahaa intersource waxaan kula soo kulmay maaragtay bukaano aad u xanuunsan sida cilmo yariis oo nafaqa darro aad u hayso oo ka yimid tuulooyinka ka baxsan magaalada jowhar oo waxay la ildaryihiin waa nafaqa darro sida maaragtay isbitaalada waxaan ku samayn doonaa rehabilitation waa weyneyn doonaa dibudhis ayaan ku samayn doonaa sidoo kale maanta waxaa noo suurto gashay inaan booqano buundada maaragtay waxaanan la soo kulannay maaragtay beeraaley badan oo warbixin naga siiyeen dhibaatada uu leeyahay fatahaadda webiga maaragtay waxaa ka mid ah webiga laba dhib uu leeyahay marna khasaare ayuu leeyahay marna faa'iido ayuu leeyahay faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah markuu webiga biyo keeno marka insha allahu tacaala waxaan ka hortegi doonaa meelaha uu webiga ka fataho inaa maaragtay bridges loo sameeyo oo maaragtay isku oo aad u dhisan inaa maaragtay daamis la sameeyo oo meel biyaha lagu kaydiyo haddii biyo la'aan ay dhacdo. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar. magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay tababar wacyigelin oo lagaga hadlaya arrimaha xuquuqda aadanaha iyo ka qayb qaadashada talooyinka bulshada. ka qaybgalayaasha tababarka ayaa sheegay inay wacyigelinta gaarsiin doonaan dhammaan deegaanada hoos yimaada Somaliland. warbixin inta ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray waryaheena Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen. ujeedada looga dan leeyahay tababarkani ayaa waxa ay tahay kor u qaadida ka qaybgalka talada dalka gaar ahaan xilliga doorashooyinka ay soo dhow yihiin. waxaa xoogga la saaray xiriirka ka dhaxeeya ka qaybgalka talada dalka iyo weliba xuquuqul insaanka oo muhiimadda ugu weyn ee tababarkani ay ku wajahnayd. qabanqaabada tababarkani ayaa waxaa iska kaashaday hay'adaha SIRIC iyo weliba CDCH waxaanay gacan ka geysatay Forum SYD. Axmed Cali Jaamac oo ka socday hay'adda CDCH ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee kulankani ay tahay sidii wacyiga dadku ugu soo jeesan lahaa ka wada qaybgalka talada dalka si gaar ahna ay cod u yeelan lahaayeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu. waa kan isagoo arrimahani ka hadlaya anigoo ku hadlaya magaca hay'adda CDCH waxaan ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan kulankan inagoo ujeedadeenu tahay inaynu dhammaanteen wada ogolaano oo wada fahanno muhiimadda ay leedahay ka wada qaybgalka talada dalka gaar ahaan si qof kasta oo inaga mid yahiiba uu cod u yeelan lahaa isla markaana ugu baran lahaa xuquuqdiisa waxyaabaha uu xaqa u leeyahay isla markaana ugu fulin lahaa una ixtiraami lahaa xuquuqda qofka kale. marka waxaa halkan isugu yimi dhammaan qaybaha bulshada ee magaalada Berbera ku nool rag iyo dumarba qaybaha ay ka kooban yihiin bulshadu. waxaan doonaynaa halkan tababarka aynu ku jirno in si fiican looga faa'iideysto insha Allah oo qof kastaaba hadhowto bulshada kale sii gaarsiiyo bulshadeena dhammaanteed ay noqoto kuwa baraarugsan oo isku dhinac u jeeda ixtiraamaya xuquuqda qofka bini'aadamka isla markaana qof kastaaba uu yaqaano xaqiisa. labadan hay'adood ee iskaashanaya SIRIC iyo weliba CDCH ayaa waxa ay tababar ku saabsan ka qaybgalka talada iyo weliba xuquuqul insaanka ay ka soo fuliyeen magaalooyinka Cerigabo, Caynaba, Burco ayagoona ku tala jiray inay ka fuliyaan magaalooyinka kale ee ka hadhay Somaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV. mas-uuliyiinta gobolka Sanaag ayaa xariga ka jaray waddo cusub oo dhex mari doonta gudaha magaalada Cerigabo. waxayna mas-uuliyiintu ay sheegeen in ganacsatada gobolka Sanaag ay qayb weyn ka qaateen dhismaha wadooyinka cusub ee dhex maraya gobolkaas. warbixin inta ku saabsan waxaa magaalada Cerigabo inooga soo diray waryaheena Yuusuf Cabdi Xasan. gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Cerigabo ayaa si wada jira maanta xariga uga jaray jid laami ah oo maamulka dowladda hoose ee degmada Cerigabo ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada Cerigabo. maayirka degmada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ka hadlay munaasabadii xarig jarista wadadan cusub ee laamiga ayaa ka waramay waxqabadka ay maamulkooda dowladda hoose ku tallaabsadeen muddooyinkii u dambeeyay. gudoomiye waxaan ku sheegayaa halkan kilomitir maanta dhammaaday ee aynu fulayno waxaan iska kaashanay labada ganacsade ee la yidhaahdo Ibraahim Maxamuud Maxamed Caalanle iyo Ibraahim Sheekh Axmed Yuusuf oo ku magac dheer Gulxanood.
runtii labadaa ganacsi ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waa markii ugu horreysay oo 1 kilomitir ganacsatadu ay ka qaadatay door dhaxaad haddii aan ka warramona 60% iyaga bixiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa ganacsatada kale inay ku dayato sidoo kale ilaalaale cidii diyaargarowda gudoomiye oo saasoo kale u soo banbaxda waxaan diyaar u ahay inaan siino haddaan nahay golaha deegaanka macadaadka iyo wixii annaga nagu xidhan aanu siino oo fududayno oo u keenno ayaan diyaar u nahay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay ayaa dhankiisa ku bogaadiyay golaha deegaanka iyo maamulka dawladda hoose ee Ceerigaabo dadaalka ay ugu jiraan kor u qaadida bilicda iyo horumarka magaalada Ceerigaabo ilaahay ma mar walba horta mahad iska leh waxaan u mahad celinayaa meeyirka iyo golihiisa deegaanka oo runtii wadooyin badan ka sameeyay magaalada oo tagay u dambeysay iyo ganacsatada caalanle iyo ganacsatada godcaanood oo labaduba iyaguna maalgeliyey oo ka qayb qaatay dhaqaalaha lagu sameynayo 1 kilomitir annaguna haddaan dowladda dhexanahay diyaar baan u nahay hadday tahay daamirkoo laga caawiyo iyo hadday tahay macdaadkoo laga caawiyo wixii dambena diyaar baan u nahay in aanu qurxinta magaalada iyo laamiyada kala howlgalno meeyarka iyo golihiisa deegaankaba waxaan ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada kale ee gobolka ama degmada Ceerigaabo caasimadda ku nool sida Golcaanood iyo Caalamada kale ku dadaala Yusuf Cabdi Xasan Cade telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo magaalada Hargeysa ayaa waxaa shir jaraa'id ku qabtay wasiirkii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland Ali Ahmed Maxamuud shirkiisa jaraa'id ayuu ku eedeeyay musharaxa xisbiga Kulmiye warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Ismaaciil Cali wasiirkii hore shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland Ali Ahmed Maxamuud Ali Sandulle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa eedo u jeediyay musharaxa madaxweyne ee xisbiga talada haya Kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxaanu gaf iyo wax laga xumaado ku tilmaamay hadal ka soo yeeray musharax Muuse Biixi Cabdi waxaan ka dhageystay wuxuu yiri Muuse kursigii uu Cali Warcad u yeedhay wuu hambaliyay kursiga Cali Warcad ku fadhiyay wuxuu ahaa kursi uu leeyahay buu ka dhigay waxaanu nidhi Cali oo ka deg aniga iyo xukuumadii iyo xisbiyadoo dhammi ama xisbiga Kulmiye sorry aniga iyo xukuumadda iyo xisbiga halka waxa ka baxay sir aad u culus muxuu ahaayay jabinta dastuur muxuu ahaayay wixii aynu qoranay oo aad moodo laadin lala dhacay waxaad moodo dawladnimadii in laga dhigay reero nasiib darro ayaan u arkay Muuse oo 12 casho ay ka harsan tahay doorashadii inuu maanta yiraahdo reer hebel baan kursiin aad iyo aad baan waxaan leeyahay Muuse arinta oran ma Somaliland oo dhan baa lagu gafay mana oranayo reer baa lagu gafay because anagu reer Somaliland baan nahay reer Somaliland bay u taalaa raali gelinta waxa ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga Ali Sandulle ayaa sidoo kale waxa uu ammaan dusha u saaray sharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka UCID Injineer Faysal Al-Waraabe kaasoo uu sheegay inuu mudan yahay inuu Somaliland madaxweyne ka noqdo Faysal uu mudan yahay wuxuu mudan yahay in la doorto wuxuu mudan yahay dalka inuu madaxweyne ka noqdo wuxuu mudan yahay inuu hogaamiyo Somaliland waxaana isleeyahay hadduu Faysal muddo hogaamin lahaa dalka 3 sanadood ama 2 sanadood ka yar in ictiraafku degdeg u iman lahaa waxaan isleeyahay waa nin runta ku fiican waa nin diinta ku fiican waa nin akhlaaqda ku fiican waa nin aqoonyahana waxaan ku qirayaa Faysalow in meel lagaga dhacay aad xaq u leedahay waana ku dooran doonaa hadii Ilaahay calaf kugu daro Mukhtaar Ismaaciil Cali TV-ga Universal madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in cunaqabatayn dheer iyo la saaro wadanka Kuuriyada Waqooyi inay tahay mid macna darro sida hadalku u dhigay kadib shir uu kaga qayb galay wadanka Shiinaha oo ay sidoo kale goobjoog ku ahaayeen madaxda iyo hogaamiyaasha wadamada Shiinaha wadanka Ruushka wadanka India wadanka South Africa iyo waliba wadanka Brazil madaxweynaha wadanka
ruushka oo isagu si guud kaga hadlaya xaaladaha kala gadisan iyo weliba xaaladda qaasatan tijaabada hubka nuclear-ka ee wadanka Kuuriyada Waqooyi ayuu wuxuu sheegay in haddii wadamada reer galbeedku ay saacidiyaan cunaqabateyn dheeriyana ay doonayaan inay saaraan dowladda Kuuriyada Waqooyi ay taasi macnaheedu noqonayso mid macna darra oo aan saameyn yeelan doonin wuxuu madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo sidoo kale uu sheegay in cunaqabateyntaas ay kaliya noqonayso mid dhibaato guud iyo weliba saameyn weyn ku yeelata dadka caadiga ama se bulshada ayayna weyni doonaan buu yiri ama aysan heli doonin adeegyada aasaasiga ee nolosha balse wax isbedelaysa ku sameyn doonaan buu yiri mas'uuliyiinta iyo weliba ciidamada militariga ee dowladda Kuuriyada Waqooyi madaxweyne Vladimir Putin waxa uu markale ku baaqay isaga iyo weliba mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Shiinaha in ay ku baaqeen inay muhiim tahay in lagu laabto miiska wada hadallada isla markaana si xal loo raadiyo wada hadalladana loo maro wadada kaliya xal lagu heli karo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna waxa uu sheegay in dowladda Kuuriyada Koonfureed iyo weliba wadanka Japan uu taageeri doono haddii ay timaado buu yiri dagaal kaga yimaada dowladda Kuuriyada Waqooyi halka mas'uuliyiin u hadashay dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegeen iyaguna in wadada kaliya ee xal lagu gaari karo ay tahay wada hadal balse ay marnaba aysan u dulqaadan doonin waa sida hadalku u dhigeen qaasatan mas'uuliyiin u hadalay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ayay sheegeen in aysan marnaba aysan ka baqayn ama aysan dhag u dhigi doonin cunaqabateyn dheer oo kaga timaada dowladda Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka ee garabka ku siinaya haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel ee ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka ayaa maalinimada Talaadada waxa ay sheegtay in cunaqabateyn dheer oo la saaro dowladda Kuuriyada Waqooyi ay noqonayso waa sida hadalku u dhigtay mid ku qasbi doonta mas'uuliyiinta dowladda Kuuriyada Waqooyi inay yimaadaan miiska wada hadallada balse madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa isagu qaba fikirta ka duwan oo uu sheegay in wada hadalladu ay kaliya noqon karaan wadada xal lagu gaaro wuxuuna madaxweyne Vladimir Putin ugu dambeyntii oo ugu baaqay labada dhinac waa dhinacyada wadamada Kuuriyada Koonfureed Japan iyo Mareykanka oo hal dhinaca iyo weliba dowladda Kuuriyada Waqooyi oo dhanka kale oo ugu baaqay in la joojiyo hadallada isdhaafsiga ay keeni kara buu yiri dhibaato hor leh oo guud ahaan saamaysa gobolka iyo dunida inteeda kale aysan ahaan doonin buu yiri mid hadhowto aynu u dulqaadan karno wuxuuna madaxweyne Vladimir Putin labada dhinac ugu baaqay in ay dib ugu laabtaan miiska wada hadallada ay xaaladda noqoto wadanka Kuuriyada Waqooyi haddii beedmo iyo weliba hadallada ka soo yeeray madaxweynaha wadanka Ruushka ay ku aadan in labada dhinac ay u laabtaan miiska wada hadallada haddii beedmo warbixin dheer waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena kale waayahay waxaa sadaawadyaal intaas nooga dul ruuxi naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dabadiisa wani akhrinaya anigu Maxamed Saciid Saxaaf guud ahaan bahda wararka ee stuudiyaha magaalada London meel bad caalamka joogtiin waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo